Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qofka muslimka keliya waxaa u bannaan 3 meelood inuu meel dego. Meel ka liidato uma bannaano. Maktabatul Insaar waxaa gaaro keliya dad aad u yar oo Ilaahay doortay. Naftaada inaad ka hormariso nafta walaalkaaga waa dad oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa ku tilmaamay ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. maktabad kale ayaa jirto oo midda labaad inaad waxaad jeceshahay walaalkaaga aad la jeclaato. an tuxibu liakhiika maa tuxibu linafsik. labadaas hore oo aan soo sheegnay waxaa jirto maktabad kasii hooseysa oo at least inaadan bukin oo qalbigaaga caafimaad qabo, oodan cadho, ciil, cuqdad aadan walaalka u haynin, ood ugu yaraan qalbigaaga caafimaad qabo. maanta masaa'il ayaa jirto ay dadka fudeedsadeen aan miraheedu hayno. maanta dhammaan caalamul islaam dhibaata ka taagan. maaha inuu dadka ka hub yaryahay, maaha inuu dadka ka caqli yaryahay, maahan inuu dadka ka hanti yaryahay. xataa waxaa jiraan wadamo muslimiin ah oo nuclear haysto. haddaba waa maxay dhibaatadan haysato? waa inay laabuhu bukaan, dabadeedna ninba kale uu reebo. walaalkiisii garabkiisii ahaybu rabo inuu reebo. ninba nin buu rabaa inuu ku cilbaxo. mujtamac noocaas ahna afraad ahaan uma guuleysto, midna uma guuleystaan, koox ahaanna uma guuleysto, dowlad ahaanna uma guuleystaan. walidaalika caalamul islaam uurxumada dhex taala ayaaba midka kala reebaya. meel kastoo dagaal ka dhacayo, qaar baa gaalada la safan, qaar baa meel kale la safan. dhammaantood bay uurxumada iyo cuqdada dhex taala. dad badan oo muslimiina ayaa ku dhawaaqayo war hala midoobo oo Soomaalida u horeyso. Soomaalidu way soo kartay, dhibaato badan baa soo gaartay. in rubac qarni ka badan ayay dhulka taali. hadda dad badan baa waxay leeyihiin war aan dib u midowno. haddaynu bugno ma midoobi karnaa? su-aasha waa taasaa. haddaynu laabto caafimaad qabin miyaanu midoobi karnaa? idan kelimatul islaam inay midowdo waxaa u horeyso inaad caafimaad qabto, ay dad wax wada yeelan karo ay noqdaan. qof kasta oo rabo inuu ku dhawaaqo midnimo iyo guul iyo walaalnimo iyo dadnimo waxaa ka horeeyo inuu iskugu yeero oo dhaho war iscafi, warkan walaalkaaga kala cafi. qofka caafimaadka qaba ee qalbigiisa nadiifka yahay wuxuu seexdaa isagoo noloshiisa walwal iyo tiiraayo aanan lahayn, isagoon laabta huraynin. dadka bar waxay seexdaan ayagoo cara la gamila. maalinba warka yar oo soo maqlo ama fadhi ku dirirke inta laga lahay hurdadaba ka qaada. haddaba waxaynu dhahaynaa qofka hadday caloosha bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara. allah subxaanahu wa tacaala nabi ibraahim calayhi salaam markii uu noogu warmay, fiirso, nebi dhan oo ilaahay soo diray oo ilaahay baryayo muxuu leeyahay? walaa tuqsinii yowma yabcathun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. wuxuu leeyahay ilaahu ha hoojin maalinta lasoo saarayo, maalinta ay maal
iyo caruur ayna waxba tarin ilaa qofkii kuula imaado qalbi nadiif ah. Culammadu waxay yiraahdaan meesha tan markii la joogo salaamatul qalbi waa laba shay. Mid waa salaamatul qalbi oo ah inaadan shirki iyo qurunkaasi aadan ku jirin. Midna waxay yiraahdaan salaamatul sadri, inay makhluuqaadka iyo siiba dadka muslimiinta ay ka nabad galaan, oo ah inaadan laabxumo iyo ciil iyo caro iyo cuqdad aadan u hayn walaalkaaga muslimka. walidaalika nabi Ibraahim calayhi salaam markuu Allah subxaanahu watacaala uu ammaanayay waxaa la yiri wa inna shiicatii la Ibraahim id jaa rabbuhu biqalbin saliim. Nebi Nuux waxaa ka mid ah buu Ilaahay subxaanahu yiri oo jidkiisii haya. Nebi Ibraahim calayhi salaam ayaa ka mid ah id jaa rabbuhu biqalbin saliim, markii uu Rabbi subxaanahu watacaala uu la yimid qalbi saliim ah oo nadiif. Marka asxaabteeda aan jeclahay, horta inaad qalbigaaga nadiif ka dhigto, horta midda koowaad aday dan ku tahay, adayba caafimaad ku tahay. walidaalik dadka aakhiro jannada ku jiraan oo raaxaysanayo xanuunkaas Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri inay ka caafimaad qabaan. Micnaheedu waxay weeyaan in uusan qofka nimcada jannada uusan dhidhiminin qofka ay noocaasi tahay qalbigiisa. Markaasuu Ilaahay yiri wanasacnaa maa fi suduurihim min ghil ikhwaanin calaa sururin mutaqaabiliin. Wuxuu yiri waxaanu ka siibnaa wixii uur xumaa ee ku jiray. Macnaheedu waxaa weeyaan in qofka bukoota inuusan ka mid ahayn dadka nimcaysan. Marka asxaabta intaas jeclaystay inaan idin soo gudbiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullah.